asturka iyo xijaabka dumarka inay cawradooda qariyaan quraanka kariimka buu ilaahay ku sheegay tabaaraka taala ayada farabadan ayaa macnaha ku soo arooray fi suurati an-nur iyo suuratu al-ahzab ayay ku yimaadeen xijaabka noocaasa ee dumarka loogu talagalay quraanku sheegay xadiista nabiguna faahfaahay sallallahu alayhi wasallam marka nusuusta istiqraa lagu sameeyo la daba galo culimadu waxay yiraahdeen labiska noocaasi shuruud buu u baahan yahay shuruudaasi waxa kamida Sheikh Albani alayhi rahmatullahi wa kitaabkiisa xijaab al-mar'a al-muslima ayuu macaadiladeeda ku keenay laakiin si gaaban hadaan u sheegno shuruuda waxa kamida maradu waa inay tahay saatiran li jamii'i al-badan jirka oo dhan waa inay maradu wada gaadhayso marag gaaban oo jirka qaar kamida aan qarinaynin asturka gabadha muslimada ma aha inkastoo la isku khilaafay wajiga iyo labada kaf haddana inta kale waa inay maradu wada gaadhayso taa lafteeda in la asturo waa la isla ogol yahay inay sunno tahay waajibnimada laga dooday shardiga labaad wax weeyaan maradu waa inaysan ahayn mara jirka ku dhagan oo cidhiidhi ah oo jirkii kale dhex galaysa laabatooyinkii jirkana sifaynaysa taa dumarka khaas kuma aha ragga looma ogola saraawiishan cidhiidhiga intay dabada ka galaan muxuu ahay bariyihii banaanka keenahay wax walba maxana banaanka ka muuqdaan lama ogola wakadalika dumarka maryahan ku dhagdhagane yani jirkii sifaynaya iyagana astur ma tayib shardiga saddexaad waxay leeyihiin waa inuu qaralay waa inuu san khafiif ahayno waxa ka hooseeya aan la arkayn hadduu khafiif yahay oo jirkiiba laga arkayo isagana astur ma xijaab ma sida beer maqariyo iyo wixii la mid shardiga afaraadi waxay ku sheegaan waa inuusan la fahantiisu ziina ahayn isaga la fahantiisu qurux indhaha soo jiidanayso birbirqaysa waa inaysan ahayn maxaa yeelay quruxda ku astur baa lagu yiri isagiiba dad si qurxiso ya ma waxbaad hadlaysa misxabaad hagaajis wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula ziinadii qariya la yiri baa wad mid kala sii saartay saas daradeed la fahanteedu waa inaysan maradu aynan ahayn mid birbirqayso indhaha soo jiidanaysa shardiga shanaad waxay ku sheegaan iyo lixaadba waa inuusan labiska ragga shabihin yani dumarkuna labis bay leeyihiin qaab u tolan ragguna labis bay leeyihiin qaab u tolan labada jinsi inay isku daydaan oo muxuu ahay istaqliidiyaan lama ogola marka labiskii ragga u khaaska waa inuusan ahayn labiskii dumarka gaalada u khaaska iyo dumarka faajiraadka ee khariban labiskii u caanka ee khaaska u ahaana waa inuusan ahayn waa inuu ka duwan yahay shardiga toddobaadi waxa weeyaan alla yakuna libaas ash-shuhra waa inuusan ahayn mara ay ku caan baxsan tahay oo magaalada kaga duwan tahay kaga dhex baxsan tahay oo markay ku labisato la dhaho waa maradii heble baa lagu yaqaanaa ayada kaliya ma raggana looma ogola ya dadkaaga ku dhex jira ka dhex bixi laakiin hadaad wax gooniyood ummadii kaga dhaxodo indhuhu ku soo raacaan aad la timaad ayadana maya waa in libaasu shuhra waa inuu sanahay libaasu shuhrahaasi labo ku yimaada qurux kaliya ma mid tacbaan oo dhaaraan oo rafaada hadaad xidhata oo indhaha soo jiidato iyada lafteeda lama ogola libaasu shuhra waxa laga wadaa waxaad magaalada kaga dhex baxayso oo lagu fiirsanayo oo iyadana maya shardiga u dambeeyo culimadu ku sheegaan xijaabka gabadha muslimada wax weeyaan alla yakuna mutayyaban bil utur aw al bukhur inda al khuruj labiska ay ku baxayso waa inuu san la udginin ya bukhur iyo unsi iyo cadar iyo barfuun iyo inaan la marinin oo haday maradu shuruudaha kala buuxiso laakiin la udgiyo laguma bixi karo gabadha muslimada ma aha xijaabkeeda hay'alay udgoonkeeda iyo unsigeeda iyo carafkeedu waa gurigeeda dhexdiisa laakiin markay banaanka u baxayso lama rabo inay is udgiso yani wax weeyaan dhaqan marka dumarka zaaniyaadka dhaqankooda kala yeelanaysa marka wallahu a'lam